kusoo dhawaada journalistkana kala caynta show caatay media fadlan si shirkaday akhbaartan degdega ama clipkani labaad oo maanta bisho ay tahay 19 bisha labaad sanada 2022 waxaanu raacin doonaa qodobkii hore oo ayaan maaragtay haduu alla ku qodobkan taabic u yahay ninka la yiraahdo Faad Yaasiin oo ka degay saacado ka hor magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoo awalba la rajeynayo halka ka dego haddaba maxaa cusub oo qodobkan aan ku sheegi doonaa waxaan ku sheegi doonaa qodobkan in magaaladii uu ka dhacay qarax weyn oo dad badan ku halaagsameen maaragtay kaasoo maaragtay dhinacyo badan ama dhinacyo kala duwan loo saarinayo hadduu alla ku roon yahay sidaas la mid ah ninkii Rooble oo de maaragtay dadaalkiisii noqday hal bacaad lagu lisay kadib markii ninka odaga maaragtay kursigiisa uu gadaal u dhigi waayay oo inkastoo in badan isku dayay inuu kursigiisa maaragtay hop 086 oo ku sumadaysan inuu dib u dhigo Faad Yaasiin wuxuu muujiyay inuu leeyahay nin lafweyna de maaragtay hawiyihii daaroodkii in badan sheegay jiray inay laandheere yihiin ayuu wuxuu sheegay in uu tusay ama tusinaya inay laandheere maaragtay uusan jirin ilaa Faad Yaasiin maahane sidaas la mid ah Faad maaragtay magaalada Kooniheeda ayuu degay meeshii maaragtay meelihii awalba siyaasiyiinta loo yaqaan dabcan muusan degin ilaa la xoogan ayaa jirta kuwa qaas asagoo hoos u sii diyaardiya iyo kuwa asaga ka sii horeeyo haram cad iyo gorgor oo ah iyagu markii hore la geeyay dhowr toddobaad ka hor oo de maaragtay markii intaan uusan tagin ninka la Cali Guudlaaw ninka maaragtay saameyntiisa ayuu wataa oo waa nin saameyn xoogan leh waxa hubintiya asaga iyo farmaajo markay magaalo wada tagaan inuu ka saameyn badan yahay kana culays badan yahay asaga sheegidiisa iyo la kulankiisa qof walbana uu arko inuu ninka la soo kulmo wax weyn oo maaragtay haduu la kuuriyay ama guul siyaasadeed inuu gaaray ama madaxweynaha loo doortay waxa kale oo jira waxaan ognahay inuu Guudlaaw madaxweynaha Hirshabeelle inuu ku sugan yahay muddo toddobaadyaba ahba magaalada Beledweyne oo dabcan uu ka wada heshiisiin iyo beelaha inuu la kulmo waxa cad ama asxaabteena halka joogta ama ilaawareedyo maaragtay halka ku sugan ay noo sheegayaan in maaragtay asaga saf loo galay ee waliba beelihii safka u galay oo la kulankiisa iyo maaragtay haduu alla ku roon yahay la jaanqaadkiisaba ay kamid yihiin beelihii gabadhii ka maqneed ee gaal jecel ama gongodhabo dhan sida xawaadle wixii dhan saf baa loo gali doonaa qofkii doonaba ha aadeen dabcan de ninkaana de qofna kursi uma diidi kara xataa dhanka kale markii loo fiiriyo dadkan qaylinaya oo dhahaya Faad Yaasiin kursi loo diido haddii nisa kursi loo diidayo kulaaljiis ayaa loo diidi lahaa dabcan kuwa kale loo diidaa sida Yaasiin Fariyo kale ninka kursigiisa halkaas ayuu yaala oo maaragtay Ra'o Xasan de kursi Ra'o Xasan ma hay kursi kale la qaadan maayo beel kale ka qaadan maayo maaragtay haduu alla ku roon halka Faad Yaasiin caaw inuu ku hidaa loo maleynaya birina kursigiisa soo qaato dabcan sawiradiisii waa idin soo gudbinay page-ka caatay media page-ka ku leenahay Facebook-ga isagoo halka ka soo degay dabcan qolsaya wata maarta koofiyad maarta ay ku qoran tahay slogan-ka nabad iyo nolol dabcan de asagu naftirkiisa xataa update weeyo ninka odaga ah inkastoo 5 sano la arkin garkii maaragta nimankan aqoon muslimiinka iyo meelaha sanka dadka ka gali jireen dabcan asagii iska xira maanta maaragta ninku waa noocaas muuqaaladiisa ayaa xataa maaragta wixii yihiin kuwa ku cusub maaragta dalka Faad Yaasiin bari ayuu kursiga soo qaadan doonaa si maaragta haduu alla ku roon yahay xaraga leh de maaragta halka ayaan rajeynaynaa maaragta golaha shacabka inuu xiiso yeesho hase ahaatee maaha golaha shacabka markuu soo qaadanayo kursigan inuu gudoomiye ku-xigeenka koowaad Muuday booskiisa inuu gali doono taa niyada ka saara oo Muuday booskiisa waxa gali doona meesha ninka maaragtay kursigiisa barawa ka soo qaatay isaguna waxa weeyaan inuu ka kaluumaysto xildhibaanadaas ayuu meesha joogaa akhyaaray mar kale waxaan ka codsanaynaa inaad si share gareysaan oo qolalka u qaybisaan clipkan oo mahadsantiin